بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوينها Soomaalida meel kasta jooga dunida ay salaamaha halka ay ku salaamaya channel Raaxo Family walaalayaal adduunka wax lagu yahay aakhir wax lagu ma aha subscribe like comment share dhinaciina laga rabaa dhinaca Facebook in follow ka soo dhaha caaw marka siyaasadda aan ka hadlayno waxay tahay khilaafka soo dhaxgalay dhinacii ODM oo Moses Governor nima ka rabay iyo dadkii la soo ceeriyay oo qaxootiga ahaayay oo Muhammad asu weynaayay dhexdooda aan rabaa inaan wax yar ka falanqeeyo taas oo dhinac deputy governor markii horeysay siyaasadda Murla waxay ahayd laba qayb ay u qaybsaneed dhinaca waxay ku tiirsanaayeen dhinaca Muhammad dhinacna waxay ku tiirsanaayeen dhinaca Moses markay dhinacii oo qaras oo deputy governor u ahaayay ayaa dakam laga soo dhigay taas awgeed in ku qabs kuma qaday siday wadaan dhinacii Moses ay u jajaraan ay rabaan inay aadaan oo siyaasadda Murla dhinacaas isku hor raacdo marka caawa waxaan rabaa inaan ka falanqeeyo meeshan ama aan ka caddeeyo siyaasadda hadba si way dabaysha geedaha maana dabaysha ay u ruuxda ama siyaasadda ay u socotaa taasna waxaa keenaysa nin badanta uu leeyahay Murla markiisa hore mowqifkiisa hal uu ah inuu ahaayaday ahayd ma ayaynu noqonin nin kale uu dan ka hayay marka caawa waxaan rabaa inaan kala caddeeyo maxay kala yihiin dhinaca Moses iyo dhinaca Muhammad haddaan ku bilaabo dhinaca Muhammad mar hore waxay ahayd biyaha markay badan yihiin oo lagta si fiican biyo wad lugta la iskaga tijaabiyay Soomaalida haddii dhinaca Murlaha macnaha mowqifkooda dhinaca u badan yahay lagu tijaabin rabay haddana haddii meesha lagu kala tagay oo xadaradii lagu kala cararay ma aha inay dhinaci kale oo haddana Moses ay harqiyaan oo ay dhahaan dhinacaasaan aadaynaa saana yeelayna inay dhahaan ma aha midda labaad dhinacii Moses waxaan u sheegayaa Murlo waa hal ma weey laba ma aha kanaan ka qaadayna kanaan u dhiibayna ulijeedka meesha ma taalo ninkii saaxiibkeena Musraf Carabiya waxaan u sheegaa lawyer caaw meeshaan ugu caddayn rabaa deputy governor ilaahay ku siiyay haddaad soo gashin fine haddaad soo gal waysan dhib male nasiibkiisu adduunka calafku cunaa marka waxaa la rabaa kursigaadaas inaad xigsatid ceshitid ood ku fara adeegtid dadkaanay nin gurigiisu soo dumiyo guri kale ma dhisa Soomaali hore u dhahdid waa maamaha Soomaaliyeed marka dhinaca qaras waxaan u sheegayaa haddaad kursigii aad raadinayseen ama tigidkii calaf aad ku wayseen inaad dhinaca Murlaha aad u socdo oo ninkan walaalkeen Musraf Carabiya uu ka yahay deputy governor-nimada hore looga siiyay oo ka socday inaad kabtiin oo taageertiin oo wax la qabatiin waay moogi kanaan ka qaadaynaa kanaan siinaynaa ma aha ulijeedka hadday isku fahantiin hataa ulijeedkeeda waxaad noqonaysiin dad mowqifkooda ninkan kala nin jeclaysi inaad macnaha Musraf Carabiya aad jecleen oo qaras jeceshiina u ekaanaysa taasna muhiimad meesha taal ma aha marka waxaan iin sheegayaa anigan waxaan ka baacaw meeshan kategori kale ka cadayna warkii ka soo baxay odayaashii shalay ama maanta ay soo dhigeen shirjaraa'idka ay ka qabteen ayaa anigana daba taaganahay aan la socdaa warkaasaan kaabaya Musraf Carabiya mar hore loo siiyay isagoo Murlo weytaan ninkaas u jeedaan oo ay arkayeen ka tageen oo duur cidla ay ugu dhaqaaqeen maanta inay dhahaan Mustafa joog ama aan saan waa inaga ku soo korin iskuulan ka soo bixinay iyo oo ku duceynayna ama ku habaarayna ay meesha liimaadaan ma aha hadday taas liimaadaan ducada iyo habaarkan Ilaahay ahaay aqbalkan Ilaahay laga rabaa muhiimadda meesha taalan taas ma aha dad weynaha waxaan ugu baaqayaa reer Mandera gaar ahaan meesha Murlo weytaan inay warka odayaashan ku tirakateerka ay wadaan inay raacin oo ina dhihin macnaha kanaan hiblow ay kana hiblay cid hiblay waxba lama siin hiblow lama siin inta Murlo weytaan meeqa raay ay ka kooban yihiin oo waxba hebel wax lama siin hebel wax lama siin lahay idabkay sharmaaq meeshaan biyaala ugu taagan dhinaca UDM haday wax ka soo waayaan markaas la dhihi karaa taamkan bal waxay waayeen taamkan wax la soo fiiri ha ahaatee marka mudada meesha taal aan ka hadlayno waxa waay nin jeclaysi ee meesha la keenin kana yar kana weyn aan la dhihin walaalkeen ama saaxiibkeen qaras haduu wax ka soo waayay dhinaciisa mar hore buu shaqaysanay oo nin business man ahay hadan dawladdu waxa waay hadhow markay Moses uu Ilaahay soo geliyo ama uu kursi helo markaas dawladda dhexdeeda shaqo looga raadinaya ama shaqo laga siinaya wixii kale oo ka sii horeysan dadkii hore u waday oo rabay qarashka inay ku bixiyaan inay ninkaas ay meel ku sii hayaan oo in kabaan siyaasaddan ay u soo dhiibaan oo dhahaan dadkii oo dhinacii Moses ay soo wal dhisaan iyada muhiimad way mid kale dadka ay la isku dirin hiblow waasaan iyo hiblow waasaan maanta oo la dhahay xal ila cidi Moses hal aaday ayaa maanta intaasoo odayaal intay meel isku imaadeen shir jira ay soo saareen maxaa biri marka laga filin karaa hadii la Musraf Carabiya laga qaado wadana hiblow lagu bedel muhiimada meeshaas ma jirto ninkii mar hore meesha u sii joogay hal kaba oo walaalka markuu hiili kaaga baahan yahay inaad kabtida muhiim
ninkii hadda ambassador lagu siinaa iyo intay ahayd iyo intay ka baxday iyo haddii ambassador lagu waayay markay dowladda soo gashay east africa mbiya lagu siinaa iyo waxaasay meesha mataa ninka ha hel ama aas helin kursiga waa inaan ninka lala qabto xooggan lala saaro taas waa taas midda kale waxaa waaye murlo weytaan waxaan u sheegayaa war ninka waxaa la lahay walaalka ah waxaa waaye garab qabash u baahan yahay hadduu gar daran yahay waxaa la lahay garabka qaba hadduu gar leeyahayna garab u noqo marka maantadaana loo baahan yahay ciddii kale oo mar hore duur intay gelisay haddii laga soo kala jabay war meesha siyaasadeed iyo intay ahayd kana heblo ahay waa soo jabay iyo waxaas la dhihin mid la raba hadda boqolkiiba boqol murlo weytaan inay iskugu tagaan waayo Mustafa Carabiya iyo Moses anigana gafanayd hore u ahaan jiray meeshaan aan ka salaamaya salaam boqol tafartan u dirayaa guul ma u rajaynayaa insha Allah team Moses marka murlo weytaanow mid noqdo war nin kastaba kuradiisa saalay war ninka odayga ku dhahay adisaan lama yeelay ciddan anaa madax u ahay hal kuraw leey adigana hal kuraad leed labadeen ani iyo adiga oo daawanaya hadaan labadeen kuraad isku darsan muuqufkeena meel waa ku mari karnaa laakiin yaana lala dhihin ciddaan asaan ahaan jirtay ciddaan tan wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu